السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستoo aad adduunka ka joogtaan dhammaan waxaa ku salaamantiin salaanta islaamka. waxaan doonayaa inaan xog dhammaystiran idinka siiyo maxaabiista ay kala bedesheen dowladda Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland. waxaan doonayaa inaan saddex qodob idin cadeeyo. qodobka iskaashiga Somaliland iyo Puntland soo dedejiyay. qodobka labaad ciday faa'iido u tahay. qodobka saddexaad ciday khasaare u tahay ee ay mustaqbalkeeda dhaawacayso. waxaan kaa codsanayaa inaad si degan u daawato muuqaalka oo aad like garayso oo aad share garayso. ugu horreyn waxaan ku horreynaya qodobka koowaad ee ah waxa soo dedejiyay xiriirka Puntland iyo Somaliland iyagoo aynu xasuusanno inay dabcan sanad iyo bar ka hor sidan ay hawada dabcan dagaal ay isugu marinayeen sidoo kale caadina ay isku leynayeen. dani wuxuu yiri xasuuqa ka dhacaya laascaanood eegan ma inuu ka dagaalamayno. laascaanood mudaharad bay ciidan bariisa iyo isku dhaceen. dadku waa mashkalad Soomaaliya u taalo ay xalinayso kana garaabayso dawlad iyo shacab geysanaya ay ka aaminsan yihiin annagu raalli ka noqonay. waxaan u sheegaynaa waxaa halkaa ka dhaca mas-uuliyaddeeda lama wadaago cid baa iskale. in aad daawateen ayaa rajaynayaa. maxaa soo dedejiyey xiriirka inta leeg ee durba gaadhay inay mas-uuliyiin Somaliland ka socdaa ay ka degaan Puntland, mas-uuliyiin Puntlandna ay ka degaan Garowe. haddaba waxaan idin dulmarayaa waxa soo dedejiyey dabcan ee xiriirka intaa leeg sare u qaaday. Garowe waxay ka cararaysaa Muqdisho, Hargeysana waxay ka cararaysaa Muqdisho. waayahay waxa soo dedejiyey iskaashigooda ee dabcan intaa gaadhsiiyey waxa weeye imaashihii uu ninka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu yimi magaalada Laascaanood ayay aad iyo aad uga xanaaqday weliba Puntland iyadaana dabcan sare u qaaday xiriirka Somaliland iyadaana abuurtay oo arrinkaa iqtiraacday. waayahay haddaba shayga laga cararaya muxuu yahay? ninka laga ra'iisul wasaare Xamse waxa uu ka yidhi magaalada Laascaanood waxa uu ka hadlay arrinka maxaabiista. haddaba aan ku horreeya Puntland u diiday dabcan dhowr qodob. marka koowaad maadaama ay federaalka Soomaaliya is haystaan iyo Xasan Sheikh waxay u diiday inay rag askar ah oo reer Puntland ah ay dabcan ka soo dayso Somaliland. waxa kale oo ay u diiday in meeshaasoo ay iyadu dagaalka ka dhacay Laascaanood ay lafdhawar u ahayd ay Soomaaliya ka arrimiso ayay iyadana u diiday oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu arrinkeeda galo. sida oo kale waxay u diiday inaysan inay Laascaanood ku qoran tahay dastuurka Puntland iyo sidoo kale waxyaabo kale iyaguna aad iyo aad u badan. haddaba si ay taa u disho oo hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ay u disho waxay xiriir la samaysay Somaliland oo aan hubaa inay xiriirka iyadu samaysay. waxay Somaliland isla meel dhigeen in ay maxaabiista ay Puntland iyo Somaliland kala haystaan in ay isweydaarsadaan. maxaabiista Puntland laga haystaa waa maxaabiistii habka qabaliga ah ku soo galay xuduudka Jamhuuriyadda Somaliland ee lala qabtay Marya Calasta iyaguna hadda sheegta dabcan SSC Khaatumo weeyaan. waa nimankii lahaa hartinimo ayaanu u nimi. waxaan ka wadaa laguma qaban xuduud Somaliland iyo Puntland dhexdeeda balse waxa lagu qabtay Somaliland dhexdeeda. waayo haddaba Somaliland waa maxay dantay ka aragtay?
danta ay Somaliland ka aragtay waxay tahay iyada qudheedu waxay ka cararaysaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maxaabiis uu siiyo oo iyagana ka qaado waa halka ay ka cararayso sidoo kale iyaduna waxay halka guul uga aragtaa Somaliland in garow iyo Hargeysa oo heshiiya ay tahay waqtiga laascaanood waa sida xaqiiqda ah Somaliland labada qodob ayay ku gashay haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay yaa soo dayn doona maxaabiista Somaliland ee ay haystaan dabcan dhulbahanta qaybta aaminsan in SSC Khaatumo la yiraahdo ee uu firdhiyo madaxweynaha u yahay su'aasha isweydiinta mudani waa taa ee shacbiga Somaliland ay isweydiinayaan waa yahay qodobka labaad haddii aan u guda galo yay faa'iido u tahay horta faa'iidada u weyn meesha waxa ka qaatay maamul goboleedka Puntland waana sababeynaya marka koobaad waxay tuseen inay federaalka Soomaaliya ka maarmi karaan waxna aanay uga baahanayn kaasoo maanta ay gaarsiiyeen inay xataa maxaabiista laga xidho iyagu ay soo deysan karaan arrinka kale faa'iidada u tahay waxa weeye in ay Hargeysa iyo Garowe ay isku soo dhawaadaan inay tahay colaada kala fogeynaya laascaanood iyo Hargeysa oo isku taariikha ina inta faantay ma rajaynaya qodobkaasina waa halkaas oo ciday faa'iido badan ugu jirtaa waxa weeyaan maamul goboleedka Puntland waayo qodobka saddexaad yaa meesha ku khasaaray shakhsi ahaan sida aan aaminsanahay meesha waxa ku khasaaray Somaliland hal qodob baa wali sidii ku celinaya hal adal Garowe iyo Hargeysa heshiiska Garowe iyo Hargeysa waxa uu cadaawad ku abuurayaa qayb Somaliland kamid ah oo laascaanood ah laascaanoodna khasab laguma qaban karo waxa kale iyaduna jirta inay federaalka Soomaaliya awoodda soo saarayaan magaalada laascaanood marka Somaliland waa u laba khasaare mar waa u khasaare oo gobol barkii oo kamid ah ayaa dabcan ay halka cadaawad ka abuurantay mar kale dawladii Soomaaliya ayaa u arkaysa inay dabcan Puntland iyo Somaliland ay ku dili karto meesha waxayna keenaysaa hubkeeda ugu faraha badan waxayna siinaysaa mudnaanta koobaad taasina waxay keenaysaa inayna Somaliland ku guuleysan halka dawladka laascaanood iyo Hargeysa kala dhex yaalaana ay sii aweynaadaan markasta waxa meesha ku khasaaray Somaliland muuqaalkii intaas isaga joojinaya insha Allah waxaan ka codsanayaa like garayso share garayso si hufanna aad comment uga soo bixisaa dilaa awood la yiraahdo